sida aad title ku soo aragtay maanta waxaan ka sheekayn doonaa faa'iidooyinka laga helo cabidda biyaha aroorta hore ee subaxii. Cabidda waqtiga hore ee subaxii waxay leeyihiin faa'iidooyin badan oo caafimaad. Organiska jirku waxay u baahan yihiin biyo si ay u gutaan shaqadooda. Assalaamu calaykum, kusoo dhawow channelka Bogasho Media. Haddaad tahay qof nagu cusub, kusoo dhawow, subscribe saar, aad ayaad u mahadsan tahay. Haddaba intaa kadib waxaan ka sheekayn doonaa 10 qodob oo faa'iidooyinka cabidda biyaha waqtiga hore ee subaxii. Qodobka koowaad wuxuu ka hadlayaa waxay nadiifiyaan mindhicirka loo yaqaano afka qalaad intestine-ka. Kadib jirku waxa uu awood u leeyahay in si fudud uu saxarada iskaga saaro. Qodobka labaad, jirka ayay ka saarayaan sunta loo yaqaano toxin. Qodobka saddexaadna wuxuu ka hadlayaa markaad cabtid biyaha subaxa hore waxaad dareemaysaa gaajo, waxaad awoodna u leedahay inaad horey u quraacatid. Qodobka afraad, biyuhu waxay kor u dhigayaan biloodhka ama dhiigga. Haddii aad tahay qof dhiig ku yar yahay, biyaha baso. Waxaan kula talin lahaa haddaad tahay qof dhiig ku yar yahay, biyaha inaad basatid oo biyaha cabitaankooda aad u cabtid. Qodobka shanaad, waxay ka hortagayaan madax xanuunka headache loo yaqaano afka qalaad. Wassalaamu calaykum.